سلطان عبد الرحمن موسى جيلي oo kamid ah salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Rays ee magaalada Boorama ayaa wuxuu kaga hadlay arrimo badan oo ay kamid yihiin warar sheegay salaadiin uu kamid yahay Sultaan Cabdirahmaan Muuse Geelle inuu u socdaalayo dhanka magaalada Muqdisho taasi oo uu sultaanku sheegay in laga been abuuray waxaan u qabtay shirkan jaraa'id maanta halkan aan ugu qabtay horta magacaygu Sultaan Cabdirahmaan Muuse Geelle weeyaan salaadiinta gobolka Awdal baan ka mid ah anu de oran maayo ka gabilay iyo ka Awdal iyo ka Selaliya baan hay yaani waa buuxdaafintaas waxa weeyaan salaadiintan baan anu ka mid ah gobolka Awdal Somalilanderna waan hay hadal la igula meeraysto oo imika Sultaan Cabdirahmaan baa tagaya xamar lay yiraahdo ayaana igu kalifay inaan qabto shirkan jiraa'id horta xamar uma socdo anigu xamar nina socdo meehi harana uma tegin suldaannimadayduna Somaliland bay la da'tahay suldaannimadana reeraha bixiye ee dawladda ma bixiso aniga reerka iyaga ay siiyay mana sheeganayo dawladna inay ay igu dawladna igu magacawdo ma garanaysaa de waxaan ahay de noqon mayso oo inay cid iga dul magacayga ka ag samayso oo ay dawladdu samayso magacayga ay cid kala siisana de ka aqbali ma dawladana waxaan leeyahay de dadkii looga shakisan yahay xamar inay tagaan una ka eegto aniga yaan leeyga eeg sidoo kale Sultaan Cabdirahmaan Muuse Geelle wuxuu ka hadlay dadaalkii uu soo maray guusha xisbiga kulmiye xilligii ololaha doorashada uu ku jiray ee kursiga madaxtooyada iyo isagoo waqtigan aan awoodi karin inuu arko madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraanyo inta uu ku guuleystay kursiga 8 sanadood ayaan xisbiga kulmiye ololihiisa ku jiray xaggii gawaarida loo iibay ee udub ay u iibisay aniguna aan iska diiday yaa halkan maanta igaga sharafro oo la dhageystaa waxa kama qabaa kol haddaan Somaliland darahay yaa marun baa de cidi dhageysataa ay imani laakiin Somalilandnimadu waa muqaddas xisbiga kulmiyana de ka wada caban maaye intii aan la shaqeynay aan la shaqeynay ololaha la galay baan damaanta ka cabanaya marna ma sarteen madaxweynaha intuu guuleystay ee uu kursiga ku fadhiistay Axmed Siiraanyo meel aanu maraba waan waayay cidii geysana waan waayay isaga kaba cabanayo sababtoo ay markii aan olaha ku jiray telefoonku baan kula hadli jiray imika telefoonkiisina waa waay wal hadii aan horta horana isla qaanay imika xilkii qabtayna aan laahay dhexda la jooga madaxweyne ku-xigeenkuna ma shaqeynay madaxweynahana waan shaqeynay xisbiga laftiisa aan shaqeynay xisbiga imakan kamid ah had aan ka ahaadi hadana samada aan iga soo daldaloon gaari laahay weeyaan ma arkayba xisbiga meel joogaba shirkii ugu dambeeyay ma ka darkiisa loo qabtay miyaa ka qayb gashay meel iimanayay nin kama qaybin quraanka akhri baa la oran قل يا أيها الكافرون بان كو أخري تدعون وحبا إيدمن تدعون وحبا إيدمن يا سيدي وحي قاليهم قل يا أيها الكافرون كو أخري قل يا أيها الكافرون نكا واسورة دي قالت اللي كو أخري نبا يقولي نكا وامنا الليلة وان ما انت صوتك حد كي جيري قل يا أيها الكافر وان قروا الصدي نفسك يا أيها واكي وحيا ميلكس قادا إلا رقمدان كورو حنون كاس demee alla meelan ku hagaago dhakhtar geynaysaana ma jiro hay de weligaymaan moodeen abaal rag inuu sidaayay ugu dambeynna Sultaan Cabdirahmaan Muuse Geelle ayaa ka jawaabay sababta uu raaci waayay salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal oo casuumaad ka helay xukuumadda dhexe ee Somaliland dhanka kalena wuxuu talooyin u soo jeediyay xukuumadda Somaliland iyo waxyaabaha uu ka filayo ka suldaan ahaan salaadiin waxa jiray imika loo yeedhay oo looga yeedhay Hargeysa xukuumaduna ay u yeedhay salaadiin iyo caqal gobolkan Awdal la sheeganay barishir ay la qaadanayaan kuwa ma ku jirtaa ma lagu yeedhay bay aan maleynaya in de intii looga shakisanaa in xabad tagayso loo yeedhay aniga la igama shakisanaa
والحمد لله مدحوينه هبل يقول يا راك إيجيني صاحب كيجي إلا سؤال لي يقول يا را سيدي محمد حاج إبراهيم قال أي مرة أي سبع أقول كي تشنتر لما تدل يعني صاحب نبدي هلينا وأنا صاحب نبدي هلا ودن كجودة هانا تعطى عننا هاي يعني واحد قال لنا قديك لأنه يقول بدل تعطى ماذا ضد معارضة ضد كمعارض هو بالله قديك عون الله أنت معارضة لأنه هو ذا وين جدنا هاشم شيخ عمر جود صومالي سات تي في بورما